السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عشر كيني اللي حاد عشر كان وعشر كيني اللي حاد إنجليزي ده ما أنت وحنو كجا هادلينا مدبضة مركا قيبها نهرت إن شاء الله أنت بان إنجليز أيانا خريط دونا كدبنا وان معنين دونا كدبنا مدبضي أيانو جلي دونا والصومالي نكو قرن إنجليزنا ku qoran aan ilaahdee ingiriisina ku qoran soomaalina ku qoran kadibna waxaynu tegaynaa sawiraynu arkaynaa sal loogu dhawaaqaynu baranaynaa sentences ayaanu ku isticmaalaynaa. Introduction below. Hello everyone, welcome back to Hadal English. In today's lesson we will learn colors in English. Colors are everywhere around us, and we use them every day to describe people, objects, clothes, and places. In today's lesson, Casharka maanta, we will learn colors in English. Midabada ayaynu Ingiriisi ku baranaynaa. Colors are everywhere around us. Midabadu waxa weeye meel kasta way nagu wareegsan yihiin. meel kasta laga helaa. Colors are everywhere around us. Okay, and we use them every day. maalin kastana waynu isticmaalaa to describe people waa dad. Describe inaynu ku qeexno dad. Objects walxo. Clothes maryo. And places iyo meelo. Places waa meelo. Imanka waxaynu gelaynaa haddaba common colors. Common waa guud. Colors waa midabo. halkan Ingiriisi bay ku qoran yihiin, halkanna Soomaali bay ku qoran yihiin. Soomaalida qudheedu midabada magacyo kala duwan bay u yaqaanaan. qaar badan oo isku si u yaqaanaan way jiraan, qaar badan oo ay ku kala duwan yihiin way jiraan. marka waxaanu ku bilaabaynaa red casaan ayaa Soomaali lagu yiraahdaa ama guduud. Blue Soomaali waxa lagu yiraahdaa buluug. Green waxa lagu yiraahdaa Soomaali cagaar. Yellow huruud ama jaalle. Black madow. Caddaan white. Orange liimi. Purple kan waa kuwa kalarada aan magaca ay Soomaalidu aanay magaca wada aqoon ku jira. marka anu waxaan filayaa in buluug maaray ama blue maaray uu yahay. buluug maaray. Purple hadhowba kalara purple insha Allah waan idin tusi doonaa. Pink waxa weeyaan Basali. Brown Bunni. haddaba waxaynu nidhi red waa casaan. Casaan. This apple waa tufaax kani. This apple is red. This car is red. gaarigani waa casaan. This balloon is red. Balloon. Okay, waxaynu gelaynaa blue. horaynu sentence-kan akhrinaa. waxaynu the apple is red. Apple-kii waa kee? waa tufaaxii aynu halkan ku aragnay. waa kaas tufaax baa leeyahay. tufaaxa Ingiriisi waxa lagu yiraahdaa apple. Buluug dhawaaqa blue ereyga markuu English tahay iyo markuu Soomaaliga aad uma kala fogaba. waa blue in English. The sky halkan daruuro ayaynu ku aragnaa. cirkii baynu ku aragnaa. waxaynu odhan karaa the sky is blue. cirka waxaa leeyahay sky. halkan ocean baynu ku aragnaa. waa badii. ocean baa bedelaha. The ocean is blue.
daruurihii baynu aragnaa xaggaasoo kale daruuri baa ka muuqda daruuraha waxaynu odhan karaa the clouds are white daruuruhu waa caddaan baynu odhan karaa oh here's a blue car gaarigani waa gaari buluuga the sky waan soo akhrina waan idiin sheegay the sky is blue green cagaar green see loo yahay green green abaleeg doogaas marka waa cagaarka ayaa green la yihahdaa this tree geedka waxa la yihahdaa tree this tree is green geedkani waa geed cagaaran ama cagaar ah this leaf is green caleenta waxa la yihahdaa leaf this leaf is green yellow huruud yellow huruud ama jaalle marba saad u taqaano oo banaane waa moose ama moos marba saad u taqaano this banana is yellow this macnaheedu waa kan the sun is yellow sun cadceedda sun leeyahay the sun is yellow senteniska ina siiyeen haddaba aynu eegno ubax weeyaan ubax this flower this macnaheedu kan weeyaan flower waa ubax this flower is yellow ubaxani waa huruud ama jaalle the banana is yellow remember xasuuso waxaanu aragnay muuskan xagan muus baynu it's talking about this moose okay the banana is yellow muusku waa huruud black and white black macnaheedu waxa weeye madow white na waa caddaan shoes kaba shoes baa lahaa shoes this shoes is black waa madow the shoes is black you could also say waxaa sidoo kale odhan kartaa the shoes is black kabuhu waa madow black cat waa bisad madow tani there's a black cat here halkan bisad madow baa joogta ama bisad madow baan halkan bisad madow baa joogta or this cat is black bisadani way madowdahay that haddaad isticmaasho waa taas bisadaas way madowda baad oran kartaa that cat is black isna waynu soo sheegnay waxaa loo isticmaalaa wax markasta dhaca markasta wax dhacayaan odhane wax markaa taagan ayaa is loo isticmaalaa now I'm talking imaka waan hadlaya I'm teaching okay tan waxa la yihahdaa paper warqad weeyaan warqad ayaa af ingiriisi warqada paper baa lagu yihahdaa marka this paper is white it's white this paper is white my shoes you could say my shoes are black the paper is white my shoes are black the paper is white maxaynu nidhi waa caddaan waxaana orange pink purple and brown okay let's go orange huruud purple no this is pink this is pink this is purple that is pink maxaynu nidhi waa basali purple maxaynu nidhi waa blue maaray blue ama blue hurda ayuu soo eegyahay marka haddii aad Soomaaliga waxaad ugu taqaanana xagga hoose ku soo sheegi kartaa halkan sentences iyo afar sentence ayaynu
ayaynu magaranaysaa ayaa halkan aynu halkan ku haynaa the orange is orange. The orange is orange. Oranjigu waa huruud. The flowerkii aynu halkaa kusoo aragnay is pink. Flowerku waa basali. The grapes maxaa leeyahay cinab are purple. The grapes are purple. The bear madax kuti weeyaane. The bear is brown. berigaad yareed waxaa laga yaabaa dee haddaad in madax kutida lagaga sheekeyn jiray inkastoo aanay dhulka Soomaalida joogin laakiin Soomaalidu way ka sheekaysaa madax kutida. waxaa la yiraahdaa bear. The bear is brown. Brown waxaynu nidhi ina mariya dib u noqonay. Brown waxaynu nidhi waxa weeyaan brown bunni. Brown waa bunni. marka okay aad iyo aad baa mahadsantiin. waxaan rajeynayaa casharkani inuu dad wax ka baratay insha Allah haddii aad casharkan ka faa'iiday. casharo fara badan baynu halkan kasii wadaynaa insha Allah maalin kasta ama weekii marban ama labadii maalmoodba maalin baan kusoo dhajinaya cashar halkan. marka insha Allah channelka subscribe oo ku xidhnow YouTube. aad iyo aad ayaad mahadsantahay.